person, he has ambition, but he has no knowledge of the religion. And it is said that this category, whatever they're called, they have a lot of energy, they want to do good for the people, but they're not doing it the proper way. And it is said that the other person is a person who he has knowledge, but he just keeps it to himself. So the best person is the person who has knowledge and he has ambition. So he is gaining knowledge, at the same time he's making sure that everyone benefits. Everyone is going up to the next level. So my advice is that all of us should be that kind of person who also knows his Lord, he knows where he's heading, he knows what he wants in life and the hereafter. This is the kind of person that all the youth should be. And that's my advice. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. bismillahi rahmaani rahiim. caawa waxaan joognaa magaalada Columbus. waxaa nasiib u helnay in aan la kulano odayaal iyo aqoon-yahano oo degan Columbus Ohio. waxaa ugu horeeya nala fadhiya waxaa ka mid ah Mr. Darius, waad wada garanaysaan. waxaan rabnaa inaan ka wareysano sidii ay soo qabteen ama sidii ahaayeen ururkii Soomaaliyeed oo la oran jiray SYL iyo waxyaalahay soo qabteen. Darius, su-aasha ugu horeysa aan weydiinayo waxay tahay SYL sidee ku timid? waa mahadsantahay. haddaan su-aasha aan ka baaro waxaan dhihi karaa intaan ka ogahay ama aan ogaalkeeda leeyahay waxay ahayd 13 dhalinyaro ah oo ka dhiidhiyey dhibaatooyinkii markaa isticmaalka waday dalkeena una istaagay inay dalkooda ka badbaadiyaan isticmaalka, gaarsiiyaan xorriyad ay gaarsiiyaan. nasiib wanaag dagaal badan iyo dhib badan markay la kulmeenaha oo iyaga xorriyada maanta aan loo saarsaarno iyagaa dhaliyey. iyagaa lahada xorriyadaanu maanta ku cayaarnay waa raggii dhaliyey. u malaynmayana iyagu kale inay dib noogu dhalanayaan. sidee aad u malaynaysaa inaan kusoo celin karno niman iyagoo kala ah ama aan u diyaarin karno? sidee aad u malaynaysaa inaan u geli karno hawshaas? wallaahi maanta dadka jooga haddaan picture yar ama sawir yarkaas xaaladda maanta aan marayno dalkeena aan sheeko yar kuu sheego. waxaa jiray geed haweyn oo beesha deeqsi u ahaa. geedkii isaga ahaa markuu qalalay oo dhintay, dadku iyagoo garwaaqsan waxtarkii geedka kana xun dhumintiisii ayaa nin waliba goynayaa, nin walibana la galbanaya ilmadiisa xaabada. intaa waxaa soo raaca shimbir yar oo ku dulmeeraysanaysa geedkaa dhacay hamadiisa iyadoo raadinaysa dhulkeedii iyo waxankeedii. micnaha waxa weeye waxaa la rabaa geedkaas wuxuu ahaa qarankii waa dhintay. qof kasta wuxuu leeyahay waan ka xumaa isagoo garwaaqsan qarankeena burbura. at the same time waxaad arkaysaa nin kasta gudihii wataa oo wuxuu rabaa inuu xirmadiisa xaabada ah uu la galbado oo u shito caawo. waa dadkaad aragtay madaxdeena shimbirta yar oo kuu sheegaysa wuxuu ku siinaya waxa weeye waa caruurta iyo haweenka iyo maantada ku balaabalaysa xerooyinka baxdeeda oo weli raadinaysa gurigoodii iyo buurkoodii waa mahadsantahay Mr. Darius. su-aasha ugu dambeysa aan weydiinaya waxa waaye waa ogahay inaad tahay guddoomiyaha dhalinyarada Columbus. aad shaqo aad u culusna aad u hayso community-ga. maxaad kula talin lahayd dhalinyaro badan oo waxaa jira waxbarta oo magaalada nala jooga oo jecel sidii uga qaban lahayn waddankooda? maxaa kula talin lahayd ugu dambeyntii? وهذا السؤال شيء وحيوي
تريسا قبل إنها تريسا أنا ولي يكون فكر إن لما حرب الصومالي لكن طبقوا قبل مركي وقصبه أنا ما قبل لكن درينكي مركي يعني هي وحنا سويدي ستة سنين وتاسوي كم تايو وحيد على الشغل الفرق هنا عندي الصومال وبشو حيد واجب حيد على الشغل التري هنا واحد يعني برضو هنا كاريشو هنا بوليسو حي عني التري حيد على الشغل التري يعني نيو ولا كي حي كنتي سؤالها كم هي أنا حرنا وتعدي بحكي والروح وحيد سؤالي مركا مضحي قولي غني وحاني هذا موضع حسوسته سؤالي مالبا كقوري سؤال شموري سو حي دالا الشغل الفريقين الصومالي وبشو كاسم حانو جواري يعني الشغل الفريق هنا قلت هذا مانتك دوتي هنا كودا قلتي هنا دورمريسي هنا داعد الوحط حي تري هنا شو لقشل لقشل وعود الموت وين الحاس كسر وين الحروب الشام وين الفرعات حي يمشي البوتي يمشي البوتي يعني ولكن كل ما يعني هنا المفروض هو هذا بديل ودبتي لما ذلك أي شيء لا ما أبغى ويا لقلك يعني واحد يقدر وبحشة لقالي يقدر بس تدخل جاي أما سنتين ديرس ورحمة الله وبركاته سودو هذا فيديو كان عربينا هذا شابرينو وحيدا فلدنا نفسه وأنا ربينا couple questions with you نفسه وحنا ربينا with you what do you think dhibaatooyinka kalluumayska ka jira oo Soomaalida ku haysata how can we overcome especially youth ka dhibaatooyinka ku haysata sida hadda gang violence iyo drug usage ku kala community-gana ku soo badanaya waxyaalo badan oo waligeeda aan la maqlin hadda community ku soo badanaya what do you think we should do and raise our kids better just like we were back home? We should start from the parents, like I said. Okay. It starts from the beginning, which is the home. Okay. The main problem for me, they choose bad neighborhood to begin with. Drugs are available, gun, violence, anything. They don't think of the long run, invest on their kids. في عايز تجان في عن schools في عن and so forth. So how can we make allowed? Okay. So أنت وقت رأسنا بقولك وتقول environment هي أفكار إثبات البدن أو سمين كرا they can change their behaviors. مركا هدي لها له solution ما دام هذا رنت هدي له البدن أو حاجة أنا أودين in environment هي كجوران maybe financial reasons. What do you think or alternative or that might have some type of solution to actually counterattack those problems? And then pay attention to their kids, to their activities. Okay. Activities should be involved in the school, after school programs, where they are. Don't just drop them over Eastern Mall and then 5 hours later it's all on here. That's the worst problem ever. And what do you think? I've noticed in Somalia, most of them, it looks like in Somalia, in other words, they're basically being very, very Americanized. What do you think should be done? And how can we educate them in terms of, hey, you're Somali, number one, and there was a country called Somalia where you came from, and this is the history. You know, how can we get back to that era where, you know, a person can look themselves and say, you know what, I'm Somali. You can't fix it at least for you. There has to be a Somali program, or Somali history, or Somali anything. That she's
they don't put any efforts towards the kids. صح. So this halkaas ka bilaawan, and I think the main thing it has to come from the parents. Because aniga dhowr gabdho ciyaal Soomaaliyeed ku arkaa jidka Afghanis ku sheekaysanaya with a foul, calling each other bad names. And I'm kind of I think you should, you know, af Soomaali ku hadlaysay dadka kale kaga arkaan, you know, af kale ku hadlaysaan hadda hoos u hadla xataa. صح. They give me the eye because me, who am I to them? صح. In an eye ku sheegana aan waaniyo ama aan wax ku dhaho ama culture or whatever. Some of them they do dress like Somalis, but they call each other's bad names. So the parent has to emphasize that. So basically, the way I was taught was 30% of your own school, like 70% parenting. So parenting at the mission that means you can say to a lawyer. That's true. One of the main reasons I'm signing video they were a group of organization called SYL back in the 40s, back in Somalia. Group kas waxay ka tirsanayeen 13 oo dhalinyaro oo isku imaaday oo goolkooda ahaa in ay mataqaanaa ay ka saaraan wadankooda gumaysiga colonialism waqtigaas wadanka ka jira. So as we know, there are also problems in Somalia. It's not the same problem, but it's just different, different problem. How can we find people like that, people who can come together and say, you know what, these are the problems, we need a solution. And what do you think? Do you agree with me, first of all, in terms of having youth to take the lead instead of depending on elders, who most of them are, using qabeels, to run the countries? Do you agree with me on that? 100%. They are loose cannon. You guys are doing a wonderful job. What you do, and you just need a few more, and then you're on your path. Absolutely, I agree with you, and I want to thank Mr. for taking the time to actually answer some of the questions that we had, and this is the end of our segment here. Thank you very much. waxaan ku sugannahay magaalada Columbus. Caawa waxaan nasiib u helnay inaan la kulno Dr. Cabdi Cali Cabdi oo loo yaqaano Xur. Xurku wuxuu ka mid yahay dhalinyarada cuslaatay, wuxuuna yahay dadkii ugu soo horeeyey oo lagu soo dhaweeyey magaalada Columbus. Xur kusoo dhawow barnaamijkan aan ugu sameynayno dhalinyarada SYL. Waa mahadsantahay. Jawaab. Su-aasha ugu horreeyay aan rabo inaan ku weydiiyo waxa waaye ama wax ma noogu sheegi kartaa waxay ahaayeen SYL iyo waxay qabteen? Horta, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. SYL haddii marka hore la fasiro waxa waaye Somali Youth League ayuu ku taagan yahay xarfahaas. Waxayna ahaayeen dadkii u soo halgamay gobonadooda Soomaaliyeed laga soo bilaabo sodomeeyadii ilaa iyo xurmada aan ka qaadan lixdameeyadii. dadkaasi waxay ahaayeen niman dhalinyaro ah oo ka kala yimid Soomaaliya oo dhan ayagoo aan isu fiirin qabiil iyo mataqaanaa haybad qabaa'il ama isku factirin ayay ahaayeen. raggaas waxayna mataqaanaa wax weyn ka qaateen in ay isu keenaan Soomaaliya iyo jiritaankeeda iyo xurnimadeeda. waa mahadsantahay. ma noo sheegi kartaa in aad la kulantay ama aad aragtay nasiib u heshay qaar ka mid ah 13 SYL? waxay markaas markaas cimrigaaga uu yahay haddaad aragtay SYL nin weyn oo mataqaanaa la soo shaqeeyey. SYL matter of fact waxaan arkay nin la yidhahdo weyne oo joogay Ottawa waan mar la kulmay iyo nin la yidhahdo mataqaanaa sheegay dheere xaaji dheere oo isna xamar ku arkay mar. that was waqti dheer ayay ahayd. rag kalena waxaa jiray rag early mataqaanaa sheegay markii xurmada la qaatay geeriyooday markii uu soo halgameen xurmada la qaatay aan xataa aan ahayn dad goobjoog ah. markaas 13kaas SYL waxay ahaayeen rag mataqaanaa sheegay Soomaalinimada ay dhab ka tahay ma ahayn dadka mataqaanaa